inkastoo mahadhooyinku ay yihiin qaar isbarkan haddana haddii garoomada laga nastay wararkii ciyaaruhu waa halkoodii qaarkood wadna go' iyo wadna gariir ayayba kooxaha ku ridayaan. wixii Liverpool samaysay toddobaadkii dhowaa kadib Szoboszlai ayaa iminkana xidigii batay ee Premier League. shabakada rasmiga ee Premier League ayaa ku dhawaaqday in xidiga reer Hungary ee Dominic Szoboszlai uu Sambaloolshe u noqday ciyaaryahanka usbuuca Player of the Week kulamadii wareegga saddexaad ee horyaalka. Szoboszlai ayaa abaalmarintan ku mutaystay bandhigiisa cajiibka ah ee kulankii Liverpool iyo Arsenal ciyaaray Red School weyn uu ku hogaamiyey isagoo shabaqa ku hubsaday laad xor ah oo toos oo qurux badan kaasoo reer madfac garka wadna gooyeyde. xaaladdu waa inaad haysataa markaasoo kale xaaladahaasoo kale haliyey samata bixiyo gurmadka degdega lugtu fiiqaaba xagga sareba hadduu dhigo aan cidiba haybsanayn wata lagu kala tegay. marka laysu soo noqdana dad badan oo ooyi doona waynu arki doonaa. xidigan khadka dhexe ayaa helay codadka 70% codadka taageerayaasha isagoo ka adkaaday 7 ciyaaryahan oo kale oo la tartanka kula jiray xidiga isbuuca ee Premier League. haddaba aan eegno Joy Pedro oo kooxda Chelsea u dheelayay 18% ayuu codadka helay. Jack Grealish oo isna Everton u dheelayay 16% ayuu helay. Mabubana oo Man United 13%, Goyi oo Crystal Palace 6%, Enzo Levy isaguna 6%, Bowen oo West Ham 3%, Sensi isaguna 1%. Szoboszlai wuxuu noqday ciyaaryahankii saddexaad ee ku guuleystay abaalmarinta xilli ciyaareedka kadib Richarlison oo Tottenham oo ku guuleystay wareeggii koowaad iyo Balhinha oo Tottenham oo qaaday wareeggii labaad isaguna abaalmarintan wariya. Liverpool way soo shaqo tagtay sanadkan iyadoo aynu ognahay in Isaaq iyo rag kalena ay ka soo xamaasheen. horta Goyi haddii ay heli lahaayeen xagaagan ciidamo kama waranteen halkaas loo dhigay horyaalka way cadda. Arsenal fulaynimada Arteta ayaa godkeeda biyo ugu galeen. waa ninka gebigiisa soo damceen oo hadduu Anfield tagay aanu 3 dhibcood ku xisaabtamina 1 dhibic ee dabada adkaystay. maxaa dabada adkaystay waa lagu dul marina sidaas oo kale kugu dhacay. Szoboszlai kugu sameeyay samatay bixiyayaal ayay kooxu haystaan baqdintiisa iyo cabsidiisa. waniye waa fulay food dheer. anigu fulay food dheer maan arag. fulay food dheer dhiiran baan arki jiray laakiin markumay waana qaadan oo kumay cibro qaadan oo 2 kumay cibro qaadan oo 3 kumay cibro qaadan. waa kan waa isla Arteta inta yare baqdinta ayaa hodaysa. sidoo kale xubnaheena inagoo ku sii guda jirna iyadana waxaynu dul istaagi doonaa waxay khabiirada kubadda cagtu ay ka yiraahdeen saxiixyadii ugu fiicnaa ee la sameeyay suuqa xagaagan. halyeygii hore ee kooxda Man United ee Paul Scholes ayaa ku tilmaamay saxiixa Donnarumma ee Man City inuu yahay heshiiskii ugu weynaa suuqa kala iibsiga ee xagaagan. isagoo suuqa kala iibsiga Yurub ayaa si rasmi ah u xidhmay fiidkii Isniinta iyadoo ciyaartoy caan ah oo kooxo cusub u wareegan sida Isaac, Chukwueze, Boniface, Sancho iyo kuwa kale. Donnarumma oo ka yimid Paris Saint-Germain ayaa City ku biiray maalintii ugu dambeysay suuqa qiimo dhan 26 milyan taasoo ay dad badan ku tilmaameen heshiis aad u jaban marka loo eego tayada goolayaan heerka caalami. Scholes oo hadalkiisa laga soo xigtay oo la hadlayay Daily Mail ayaa yiri Donnarumma 26 milyan inuu noqdaa saxiixii ugu fiicnaa suuqa. dabcan marka laga reebo 14 ciyaaryahan ee Salford City ay saxiixatay. goolhayaha reer Talyaani ayaa hadda ku biiray liiska xidigaha ugu waaweyn ee Pep Guardiola waxaana la filayaa inuu door muhiim ah ka ciyaaro xilli ciyaareedka cusub ee Premier League. qiimahana horta way la heleen balse way ahayd inay wax ka sareeya City ay ku soo qaadato xidiga lagu kala iibsado ayuu yiri Scholes. 173 badbaadin sababta Man United ula wareegtay Senne Lammens oo iyadana daawaha laga qaaday. goolhayaha cusub ee Man United ee Lammens ayaa ka hadlay sababta xilli ciyaareedkiisii hore uga dhigtay mid soo jiidasho leh iyo kaalinta ay Royal Antwerp ku yeelatay horumarkiisa. xilli ciyaareedkii hore Lammens ayaa sameeyay 173 badbaadin, tirada ugu badan ee goolhaya ka sameeyay 10 horyal ee ugu sareeya Yurub. taasoo ahayd sababta ugu weyn ee United ay u sameysay saxiixiisa tixraacana ay ugu xalaashatay. waa isku darka dhowr arrimood ayuu yiri Lammens. waa inaad haysataa koox aad isku muujiso. Antwerp waxay ahayd tallaabo fiican waayo
waa heer sare, haddana waxaad ka taxadaraysaa goolka in badan. Waxaa jira fursado badan oo lagu muujiyo kartidaada. Goolhayaha reer Belgium ayaana hadalkiisa sii raaciyay, xilli ciyaareedkii hore wax walba si fiican ayay isugu dhaceen. Haddii aad eegto tirakoobyada, waa waxa aan noloshayda oo dhan ka shaqaynayay. Waa wax aad u wanaagsan in aan xilli ciyaareedkii hore isku muujiyo dunida dibaddeeda iyo kubadda cagta. Lemans oo 22 jir ayaa la filayaa inuu noqdo mustaqbalka goolka United, iyadoo bandhigiisa cajiibka ah ee Belgium uu calaamad weyn u noqday awooddiisa iyo kartidiisa inuu yahay mid la isku halayn karo. reer United canuga yar bay walaayada saaran doonaan. Waynu eegi doonaa bal in xal uu noqdo mushkiladii meesha ka jiray iyadana. Victor Gyökeres oo ka jawaabay dhaliil uga timid haliyey Arsenal kadib guuldaradii Liverpool. Weeraryahanka Arsenal Gyökeres ayaa si adag ugu jawaabay hadaladii haliyeygii hore ee Arsenal Fred Lechwam, kaas oo sheegay inuu murugo ku dareemay qaabka uu Mikel Arteta u maamulay ciyaartii Anfield ay Liverpool ku garaacday. Gyökeres ayaa ku dooday in dhaleecayntu ay fududahay marka aadan garoonka ku jirin. Way sahlan tahay in uu wax dhaliilo qof aan garoonka ku jirin. Anigu waan ogahay waxaan samaynayo iyo sida adag ee tartankani yahay, ayuu yidhi weeraryahanka reer Sweden. Arsenal ayaa kulankaasi la timid rikoodh 100% guulaha kadib markii ay ka adkaadeen Man United iyo Leeds, balse goolkii quruxda badnaa ee dhulgariirka riday ee Dominic Soboslai daqiiqadii 83aad ayaa sababay guuldaradii u horeysay ee xilli ciyaareedka. Haliyeyga Arsenal ee Ljungberg ayaa ku eedeeyay kooxdiisii hore inay khatar yar qaadatay islamarkaana ay ka weecatay falsafadii kubadda weerarka ee soo jiidan jirtay taageerayaasha adduunka oo dhan. maxaa soo tan Arteta difaac yidhi gala ee aan guulba ku soo talagelin dhibicdaasi ay u ahayd 100 dhibcood ay uga dhignaydba. fulay foodheeraa baa hogaaminayay. waxaanuu yidhi markan uu soo qowdhamay odaygani, mar walba waxaan ku faani jiray in dad badan oo aan taageero ahayn ay igu yimaadaan oo ay yidhaahdaan waxaan jecelahay inaanu daawano Arsenal sababtoo ah waxay ciyaaraan kubad qurux badan oo weerara. laakiin waxaan ku arkay Anfield waa in khatarta la yareeyay. mar walba taasina waa wax murugo leh, ayuu yidhi Ljungberg. dhaliishaas ayaa dhalisay hadalka Gyökeres, kaas oo difaacay shaqada kooxda isagoo carabka ku adkeeyey inay Arsenal ay weli wado horumar islamarkaana ay muhiim tahay in kooxdu hesho isku dheelitirnaan dhanka ciyaarta. Gyökeres durtaba hadaladii buu ka gubanayaa haliyeyadii hore ee kooxda Arsenal dee u ciyaari jiray imikana taageera ay ku ganayaan. waxaas way iska dhacaan Premier League dad joogto, maca warbaahintu way iska kaajiirayaan. Mikel Owen ayaana shaaciyay isaguna hal wax oo United ku hortaagan inay hanato Premier League. maxay hanataa hanashadu haba dambaysa bal 10 hore ku soo biirto. haliyeygii hore ee weerarka England iyo United Mikel Owen ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in Red Devils ay ku guuleysan karaan Premier League 10 sano ee soo socda. lacallahu inkastoo dhibaatooyin badan ka soo mareen suuqa kala iibsiga sanadii la soo dhaafay. Owen oo ka hadlayay barnaamijka Rio Ferdinand Broadcasting ayaa difaacay ciyaartoy badan oo United ay soo iibsadeen balse aan Old Trafford fahmin, isagoo tusaale u soo qaatay xidigo ay ka mid yihiin Di Maria, kaasoo lacag badan lagu keenay balse markii ay koox kala tageen ay mar kale sare u kaceen oo heerkoodii tayeed ee ciyaareed ay soo baxday. waxaanuu yidhi isagoo qowdhamaya, mar walba way sahlan tahay in la yidhaahdo United waxay iibsadeen ciyaartoy xunxun. waxaa jiray qaar badan oo aan shaqayn, laakiin ma wada xumayn dhammaantood. qaar badan ayaa markay baxeen noqday kuwo fiican. mar kale ayuu yidhi. wuxuu sidoo kale ku tilmaamay in arrinta ugu weyn ee kala saarta kooxaha guulaysta iyo kuwa aan guulaysan ay tahay deegaanka iyo nidaamka tababarka. haddii aad ciyaaryahan caadi ah keento Liverpool hadda, waxaa lagu kabcin doonaa nidaamka, kadibna 2 sano gudahood waxaad ku iibin kartaa 30 milyan. keliya deegaanka ayaa wax walba bedela. Owen ayaa ku adkaystay in haddii United ay hesho nidaam saxa iyo jawi taageero leh, ay suurtagal tahay inay mar kale ku guuleystaan horyaalka ugu weyn Ingiriiska 10 sano ee soo socda. 10 sano ee soo socda. war bal horta 10kan hore soo gala. nimankii 10kii hore xitaa dib uga sii dhaceenbe oo xaalkoodu uu yahay meel allow sahla. sidoo kale intaanaynu Premier League aanaynu ka bixin, Paul Morrison waa khabiirkii saadaalin jiray kulamada Premier League iyo ciyaaraha, balse
markan saadaashiisii waa u bedelay cidda horyaalka ku guuleysan doonta sanadkan oo hore u sheegay ayuu mar dambe isbedelay misana markii 3 kulan la dheelay. Paul Morrison ayaa bedelay saadaashiisii ku saabsan cidda ku guuleysan doonta horyaalka Premier League isagoo hore ugu saadaaliyay inay Arsenal heli doonto koobkeedii ugu horeeyay ee horyaalka 22 sano ka hor. Morrison ayaana hore uga tirsanaa kooxda Arsenal wuxuu markii hore taageeray in kooxdiisa hore ay ku guuleysan doonto horyaalka balse hadda waxa uu rumaysan yahay in Liverpool ay difaacan doonto koobkan. kooxda Reds ayaa kooxda kaliya guula ka gaadhay 3 kulan ee ugu horeeyay Premier League iyagoo ka badiyay Bournemouth, Newcastle iyo Arsenal. Arsenal ayaa hadda ku jirta kaalinta 3aad kadib markii ay garaaceen Man United iyo Leeds kahor inta aysan Axadii 1-0 lagaga adkaanin oo Arne Slot aanu Anfield dhex jiidin. Arsenal ayaa ku dhamaatay kaalinta 2aad ee Premier League 3 xilli ciyaareed oo isku xiga waxaana Morrison haatan uu aaminsan yahay in sugitaankoodu uu sii socon doono. markii la weydiiyay in Liverpool ay hadda yihiin kuwa ugu cadcad inay ku guuleystaan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ee 2025-26 ayuu u sheegay shabakadda Sky Sports sida tan: anigoo eegaya wixii dhacay maalinimadii Axadda waan aaminsanahay sidaasi. markii aad heshay Isaaq eeg anigu mar walba waxaan qiimeeyaa horyaalka markii waqti uu ka dhaco oo weliba aan arko waxa isbedelay. markii hore waxaan moodayay in Arsenal ay fursad fiican haysato markii ay garaaceen United laakiin kadib guulay ay Liverpool ka gaadhay Arsenal iyo Newcastle aniga ahaan weli ma gaadhin qaab ciyaareedkoodii ugu sareeyay haddana waxa ay badiyeen kulamadii ay ciyaareen iyadoo weli bandhigooda wax inoo laaban yihiin. haye markii horeba waad ka hadaaqdo waad iska hor carartay malaha. Paul Morrison nimankan Arsenal inta Arteta foodheeraha fulayga uu baqayo ha ka sugi. Lamine Yamal ayaa sheegay cidda u qalanta Ballon d'Or haddii uusan isagu aanu helin. xidigan daada yar ee Barcelona Yamal ayaa shaaca ka qaaday ciyaartoyga uu jeclaan lahaa in lagu abaalmariyo Ballon d'Or-ka haddii uu aanu isagu ku guuleysan. waraysi uu siiyey RTVE 18 jirka reer Spain ayaana sheegay Lionel Messi waa ciyaaryahankii ugu fiicnaa abid mar walba wuu mudan yahay Ballon d'Or-ka. Neymar isaguna waqtigii uu joogay Barca ama Paris hubaashi wuxuu mudnaa inuu ku guuleysto abaalmarinta ugu weyn. waxaan jeclaan lahaa inuu ugu yaraan hal mar helo Ballon d'Or-ka. Yamal ayaa Messi ku tilmaamay kan ugu weyn taariikhda kubadda cagta halka uu Neymar ku sifeeyay ciyaaryahan aan marna helin ixtiraamkii uu xaq u lahaa. xidigan Barca ayaa ka mid ah musharaxiinta sare ku tartami doona Ballon d'Or-ka sanadkan 2025 isagoo wajihi doona ciyaartoy caan ah sida Mbappe, Salah, Dembele, Rafinha. balse Neymar kan uu la jeclaan lahaa soo kan kilaabada ka dhamaan la iyo inuu habeen oo dhan iska caweeyo kadib isgabagabeeyay. iminkana meelaha iska daala dhacaya markii uu kilaab iyo dhaawac ka bixi waayay nin kilaab tagay dhaawac ka sugi waayeen hore ka qaadanaya fooda. waa tahay saaxiibada aanu jecelahay xubintu waa kariski iyo kala haadintii anigu waxaan ahay Maxamed Tirike halkaad nagala socotaana waxaanu leenahay saaxiibayaal kor noo qaada falowda nagu taageera like-tu waa noo muhiim sidoo kale aragtidiinuna yaanay ka maqnaan meesha la wadaag asxaabtaada. xubinta xigtaynta inuu ku kulmi doono oo warbixinadeenu sidan isugu daba jiri doonaan inta ka horeysa sida ayaa amaana Allah.